And therefore, I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS, and save lives. walaal fadlan gurigaada joog haddaad isku aragto calaamadaha cudurka lagu sheegay fadlan laga bilaabo maalintaas calaamadaha isku aragto 14 maalmood gurigaada joog. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومثلتين حضن ميديا iyo dhammaan media runtii danaysa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha iyo gudaha intaba waa muhiim waxa in maanta laga hadlo waxa la yiraahdo coronavirus-ka oo ah cudur runtii adduunka maanta saameyn ku yeeshay coronavirus ogtiin waxa uu soo bilowday bartamihii dalka sanadkii horeeto 2019 wuxuu ka soo bilowday magaalada Wuhan ee dalka China muddo badan oo dalka China ku dhaqan ayuu aafiyay tobanaan kun oo qof ayaa u dhimatay inta la ogyahay adduunka maanta waxa uu saameeyay qaaradaha adduunka oo dhan haday tahay Asia, Europe, Africa, Australia iyo America intaba qatartiisu waxay tahay waa cudur ku dhaca waa cudur viral infection oo infection caadi ah laakiin inta badan saameeya pulmonary system-ka sanbabada qofka taasina waxay keenaysaa inuu qofku marka uu ku dhaco cudurkan oo uu ka gudbo xaaladda koowaad u gudbo xaaladda labaad inuu saameeyo sanbabada qofku neefsan waayo bukaanku halkaana ka timaado waxa la yiraahdo organ failure in qofkii sanbabadiisa ay shaqeyn waayaan sidaan uu ku dilo qofka hadda dalka UK dhawaan ayuu soo gaaray sida aad ka wareysaan Soomaaliduna qayb ay ka tahay dadyooga halkan ku nool ilaa hadda waxa effecteena oo uu saameeyay oo lagu hubaa dad gaaraya ilaa 5,000 oo bukaan laakiin waxa u dhintay daytadii shalay oo ugu dambeysay ilaa 233 bukaan waxaan la rajeynayaa inuu aad u sii kaco haddaan ka waramo wax yar dalalka Yurub hadda nagu dhadhowna waxa kamid ah Jarmalka 22,000 oo qof qabta Talyaaniga ayaa ugu badan dalalka oo aadka ugu baabiyay dadka iyo Spain intaba Italy shalay oo Sabtiya waxa ku naf waayay 750 qof oo dad ku dhow oo u qaba cudurkan coronavirus-ka waa dilaa runtii waa cudur infectious ah bulshadana aad ugu faafa waxaan rabaa marka laba waxyaabood inaan dadka Soomaaliyeed uga digo oo aan jeclahay inaan la wadaago kow marka u horeysa Soomaalidu dadka bini aadamka ay ka mid tahay waxa laga yaabaa dad badan oo isku baraarugsanayn laakiin cudurkan waa dilaa waa halis waxa muhiim ah qofku inuu iskarantiilo isagoo hadda dalka waxa ka jirta sida aad ogtihiin oo dawladdu ay ilaamisay in qof walba uu gurigiisa joogo ma dadka qaba kaliya qofka aan qabin xitaa gurigiisa inuu joogo oo ka bixin gaar ahaan wuxuu cudurkani target uu ka dhigtay aad u laayay dadka waaweyn oo daada kuwa qaba cudurrada wadna xanuunka diabetiga iyo dadka qaba cudurrada la xiriira sanbabka gruubadaas dadka ama kooxahaas dadka oo sida cudurrada u qaba si gaar ah inay u taxadaraan loo baahan yahay dalkan hadda uu ku cusub yahay waxaan rajeynayaa inuu aad u kaco oo uu dad badan saameeyo qiyaasta dadka kul aan doono lama sheegi karo laakiin waxaa muhiim ah kow qof walba inuu iskarantiilo hadduu qabo iyo hadduusan qabinba gurigiisa inuu joogo haddii qof ku dhaco qoyska ka mid ah in qofkaas si gaar ah loo karantiiro isla markaana uu waco numberka NHS ay ugu talagashay ee 111 kaasoo ka caawin doona haddii alla idmo gargaarka uu baahan yahay waa muhiim haddii aad isaga shakiso inaad immediately isla markiiba inaad wacdo isbitaalka ku macnaha aad wacdo numberka 111 ama 999 ama aad tagto xarunta kugu dhow ee lagaas caawin karo taas waa muhiim waxa muhiim ah walaalaha Soomaaliyeed
inay qaataan tallaabooyinka ka hortagga ka hortaggu daweynta uu ka fiican yahay waxaa muhiima in qof walba oo Soomaali ah ama aan Soomaali ahayn inuu aad uga shaqeeyo nadaafadda gacmihiisa fadlan walaal haddaad isku aragto calaamadahaas mas-uuliyad qaad oo gurigaada joog ha ka soo bixin 14 beri gurigaada joog walaal 14 beri ka bacdi cudurka dad ma qaadsii kartid adiga maxaa yeelay cudurka 14 beri uu kugu dhul dhimanayaa ama u dhimanaya ama ka badbaadaya insha Allah taala waana aad ka badbaadaysaan idinka Ilaahay arrintan Ilaahay uga cabsada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh